kaa codsanayno oonu naf iyo maal iyo awoodba kula ag taaganna inaad kol labaad noogu soo noqoto waanan hubaa haddaad ku soo noqoto inaad haddana maayarka noo noqonayso ilaahay baa kaa dhigay ummadduna way kaa dhigaysaa waa lagu wada kalsoon yahay noogu soo noqo niyad jab kulama ogo waxaanu kaa codsanaynaa mar labaad in la soo taago oo annana kugu ridna codka fadhini laba nin oo maxamed amiin ka mid yahay iyo ninka dicin la yidhaah ee gobolka saaxib waa labada ugu qiimaha badan Soomaaliland ee aad loo hadal hayo waxqabadkooduna muuqdo dicin waanu ognahayoo inuu kol labaad ku soo noqdo ayuu soo gudbiyey maxamed amiin ilaa imika waxba kama ogin waxa laga yaabaa inuu tolkii ku dhex daalay uu degmooyinkiisii sidoo habeenii maalin ugu shaqeynayo isleeyahay kolon ku nasiya maxamed amiin adeer waxaanu ku leenahay annagoo ka codsanayna wasiir ku-xigeenkii arrimaha guduhuna uu joogo wasiirkii gobolkuna uu joogo nagula cadaadiya annaguna haddaanu nahay salaadiintii gobolka anigoo ka wakiila iyo degmooyinka gobolka oo dhan waxqabadku geliyey wuxuu u baahan yahay in halkaa laga sii wado gacan maqan wax nagaga iman doona ilaahay baa og daalkaama ogolin adiga maanta anigu madaxweyne iyo meel ka weyn baanu kula fili lahayn laakiin waxaan leenahay oo tabaltan imika aanu hayno bal degmooyinka isaga uga faa'iido badnaanayeen annagoo halkaas aanu kula doonaynaa maxamed amiin camo noo soo noqo anigoo ka wakiila gobolkii Gabiley salaadiintiisii iyo dhaqankiisii iyo degmooyinkii kale waxaan leeyahay noo soo noqo waanu ku soo dhaweynaynaa ha naga tagin ducana waanu kugu ladhanaa waanu ku ag taagnaanaynaa insha Allah degmooyinka inta hadhay iyo tuulooyinka ku xigana wax qabadkaaga dambe gaari doona kuwana halkaynu doonay maxamed amiin cumar cabdi wuxuu qabtay waxyaalo badan halkanuun maaha degmada meel aan wax ka qabanin ma jirto maayir hawsha aad ku dhiiratay halkaa ka sii wad ilaahay kugu garab galo waa talabaad waxaan soo jeedinaynaa odayaal ahaan degmo ahaan inaanu annaguna noqono kuwii ku baraara goobtan duqa gobolkana waxaan leeyahay ee waxqabadka ugu hormuudka ah ee maamulka gobolku ku caawinayana insha Allah wixii dhulka iftiimiya ee wax u tara nafta jecel insha Allah ilaahay waqti ha kugu simo oo si aad waxqabadkaagu maantaba marka Gabiley la yiraahdo ka muuqdaaye uu u sii kordho wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ka codsanaynaa maayirka maayir degmada iyo gobolka iyo wadanku intaaba way jireen waa la soo hayn jiray xilka wali degmadaaga bar nin inta in ka qabtay iyo inuu dhow mid ma naarag imigana inagoo waqti gabagaba joogno ka dambeeyay iman doona wuxuu noqon doona Allah yaalama gacan ku jirtay waxaanu kaa codsanaynaa mar labaad in la soo taagto oo annana kugu ridna codka